salaam waxaan wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaan idin tusayaa sida sam if iyo sam farqiga u dhexeeya ayaan maanta halkan idinku tusaya markaa la socod wanaagsan categorieskaas iyo lasoo qiimahaas ayaan leenahay samifka iyo lase samka siday ku kala duwan yihiin ayaan ku arkanay tusaale marka koowaad halkan haddaan leenahay total price waxaan ku qornaa total price of fruits ayaan leenahay xaggana total marka farqiga ku kala duwan yihiin ayaan halkan maanta ku arkaynaa waxaan sameynaa marka koowaad sam if equal to sam if ayaan leenahay sam if markaan ku shaqeynaa waxay ka dhigan tahay tirooyin fara badan waxyaabo fara badan oo kala duwan shayada isku midka isugu kaygeeyay ka dhigan tahay sam ifku markaas sam if ayaan leenahay tiradaas kala duwan kooma double quotation fruits kaliya iskaga kaygeeyaan leenahay double quotation gaan xidhinaa koomaan leenahay price-kooga halkaa yaala isugu kaygeeyaan leenahay click ayaan leenahay 9 marka la isku geeyo fruitska halkaa yaala ee kala duwan $96 weeyaan bay ka dhigan tahay markaas kan kale tableska markaan eegno xaggan aan galayna equal to ayaan leenahay sam if ayaan leenahay tiradaas kala duwan ee categorieskaas ayaan leenahay iskaga kaygee vegetables-ka double quotation-kan xidhaynaa kooma ayaan leenahay price-kooga iyo sheeg iskugu kaygee ayaan leenahay parentheses-kaas xidhaynaa inter ayaan leenahay kadib marka la isku geeyo fruitskaas afartaas fruitka marka la isku geeyo 96 ayuu noqday vegetables-ka marka la isku geeyo kaasna wuxuu noqonayaa 105 oo qiimahan igu isku kangeeyay kaas waa sam ifka samka caadiga marka la shaqeynayo waxaad odhanaysaa totalka guud ayuu isku kaageynay sida kuma kala saarayo labadan kuma kala saarayo balse wuxuu isku kaageynaya totalkan guud equal to yaad leedahay sam yaad leedahay double click samka koobaad ku soo bixi saas oo dooranaysaa enter yaad leedahay kadib samkan tiradan guud price-kan ayuu ku shaqeynayaa maahane maxaa la yiraahdaa mid kuguma soo shaqeynayo tusaale haddaad doonaysid labada la isku geeyo waa kaas 201 weeyaan markaas la socod wanaagsan qaybaha kale barnaamijka aad baad u mahadsantihiin